بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داوديال meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinkaga soo diyaarinay xaflad aad u heer sareyso oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xildhibaanada labada gole oo lagu qabtay magaalada Aarhus ee dalka Denmark xafladani oo ka soo qayb galeen siyaasiyiin aqoon-yahano waxgarad culmaawdiin haween dhalinyaro iyo qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark xafladani oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa dadkii soo abaabulay waxa ka mid ahaa Ibrahim Salaad Maxamed Xaashi Maxamuud Cabdi Jaamac علي قبيرة قطر يوسف سياد حمد عبد الله عبد العزيز ينور علي شردون حفلة دينا وحي ودعضي سيدة تان سيدة قروح بدن عجاز وقيب دبشان عاد بني وأنا هير أوس هي قبلة الروح فكرة بدن باك الجوجو عادنا وحنا سنتين وردتك Soomaaliyeed oo dhammeeyirnuhu dalkii waa degay dagaar waa la diihdaya dalkii waa degay dagaar waa la diihdaya oo dawlad loo idiyaha daa'im soo hodadi farmaajo loo idiyaha hayba la doortay dalkii waa degay dagaar waa la diihdaya farmaajo loo idiyaha daa'im soo hodadi diyaar ma wadatihiin dib loo noqdaa diyaar ma wadatihiin dib loo noqdaa oo wiilkaas inoo kacay ilmada riyaalo kuwa yararkii la inaga kari laayahay ee qarankeeni iyo shirimaha iyo Dubai iyo Kenya iyo Nairobi iyo Djibouti iyo mataqaanay Kampala inooga yeerayeen ilmaha inaga hadho oo gudnimadu ha inaga hadho Soomaaliyeed oo ilma adeerayaal Soomaali baynu ahaan jiray dhulkana ka tagi meene waxa la yiri waxa ku leedahay dalkaaga hooyaha wardigo ugu qabay walaalayaal waxa ila quman inaynu ficil la nimaano aynu iska dayno maalmaha hore iyo caadifada iyo mataqaanay farmaajo iyo waxba ka jirin ilaahay wuxuu leeyahay halka sidqigu ilaahay raba walaalayaal sidqiga aynu iska dayno iyo mataqaanay lugu iyo dirir lugna iyo boqor waxba ka tiri mayso sidqi baynu u baahanahay ilmaadana dawladnimadu waa aniga iyo adiga ee diyaar ma u nahay qashi way dhalatay waana la hambaliyay wax qabadkiiba haraye ilmada riyaal niyada aynu hagaajino ilaahayna aynu barino aynu iska dayno ilmada riyaal bal ku fiiri kana TV qarankana uu jooga waxaan u gaarsiinaynaa madaxweynaha iyo gudoomiyaasha labada gole hambalyo aad u weyn iyo duco isxambaarsan waxaan leenahay sidii shacabkiinu idin doortay meesha joogtaan idinka doortay barnaamijna idin dooranay oo idinku kalsoonnahay waxaan kaloo leenahay waxa dadkaas uu idinku xishay baan annaguna ku raacsannahay oo idinka sugaynaa waxaan ognahay in ninkii la yiri wiil baa ku dhashay ee yiri war muxarada geel ku duwo kale inayna noqonin in laga sugo ruuxa meesha loo dhiibo in lagu aamino looga dambeeyaa fiican aad iyo aad baan ugu maarta hambalyeynaya tan Soomaaliya hadda ka dhacday doorashada hadda ka dhacday Soomaaliya say u dhacdayna waa mid sharaf leh ayay u dhacday hadda maalin waxaan akhrinayay wadamada Afrika madaxweynihii laga qaaday meesha wax uu sameeyay waa yartay madaxweyne Soomaaliyeed madaxweyne Afrikaana oo markii xukunka laga qaatay dood iyo mashaakil la yimaadeen aan maarta kama iska maray hadda Gambia waa aragteen meeqa sano meeqa xilli dheer ay waxay ku jireen dawlad aan ku jireen oo madaxweynahoodii wadanka ka baxay marka Soomaaliya oo ahayd
oo magaca aan lahaan jirnay Somali Democratic Republic Somali Democratic waddankeenu hadda wuxuu muujiyey doorashadan waxay muujisay in aan u soo noqonay oo aan mid ka mid nahay dowladaha reer Afrika sida South Africa oo kale sida hadda Kenya oo kale ay dimuqraati toos ay ka dhacday oo doorashada fiican ay ka dhacday madaxweynihii hore si fiican oo sharaf leh ugu wareejiyey madaxweynaha cusub iyadoo aan dood lahayn waxaan farmaajo ugu darayaa waxaad ogaataa wixii wadaniyiintii Soomaaliyeed ee ilaahay gobonimo doonkii soo raadiyey haddii sayidkii laga bilaabo iyo rag badan 13 SYL ama Cabdullaahi Ciise ama wadaniyiintii dalkan soo maray abaalgudkooda waa ogtahay Soomaali kaba aysan wada helin marka ha ugu fakerin inaad ka heli doonto abaalgud laakiin waxaa isku dayda inaad ka tagto dignity Soomaali ay leedahay adiguna haddii ilaahay yiraahdo ilaahay ha ku waafajiyo inaad u dhawr adeegto sida arka Soomaali kama heli doontid laakiin u shaqeey farmaajada intaasaan ku leenahay waxaan ku darayaa waa ducaynaynaa oo culimadii baan la qabaa ilaahay waxaanu leenahay dhibaatadana gaamurtay ee nagu habsatay ilaahay inuu naga qaado meel walba waa laga dhigay laakiin anigu si gaar ah waxaan salaamayaa dadka xamar joogay oo maalintoona ay taageereen xabad lagu furo laga leeyahay qaar oo yiri wariya naga fadhiis laakiin hadda ku dhiiraday inay mar labaad soo maartay u soo dabaaldegaan si khaas ah waa dadka xamar waxaan aad iyo aad u mahadinaynaa sida hadda uu adeer siyaasigu waa sheegay nimanka xildhibaanada ah ee maanta isbeddelka muujiyey ee dadkii Soomaalida ku soo celiyay kalsoonidii aynu lahayn aan iraahdo waxaan balyeynaa madaxdeenna waanaan inaan taageernana waa ku qasbannahay ama diid ama ogolow waa madaxweynahaadii iyo guddoomiyaashaadii haddaad rabta xagxago haddaad rabtana faani hawl adiga kuu taaliwe laakiin ra'ligaaga hadal adoon xumaan ula jeedo fakarkaagana hadal adoon xumaan ula jeedo anigu waa u hambalyeynayaa waana u ducaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryahayaa in ilaahay nooga dhigo kuwii hoggaankooda aan ku dirsanno baarlamaankan qiimaha iyo qaayaha leh ee dhallinyaradu hadda ay ku doorteen madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waana soo dhaweynaynaa waa mid Soomaali bay u tahay maxaan ku kala duwanaa noo sheegay waa inaan kaas kaliya mideeyaa nimankeena hogaamiyaasha ah waxaan u sheegayaa inaynu maxay ahayd maanta Soomaali aan la kala aqoon laakiin ayagu way kala saaraan waxaan rabaa marka dardaaran yar way kala dhaxgelayaan dardaaran yar baan rabaa inaan madaxweynaha la doortay oo shacabku doorteen inay maxay ahayd dardaaran yar ilaaho dardaaranka dhahay waxa weeye waa lagu imaanayaa ra'iisul wasaaraha keen baa la dhigay tala la siinaya laakiin talada inuu si ku dhageysto mid ugu wanaagsan uu kala baxo marka waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay horta ama waxaan ammaan iyo ogaadi u dirahayaa xildhibaanadii soo doortaysan iyagaa horta marka u horeysa iyagaa maanta mudan maxaa jira markii ayaga la duwanaya dad fresh ah soo baxay magaalada soo baxay anigu isaga waan u hambalyeynayaa oo ma soo dhaweynayaa waxaan sii dhaweynayaa madaxweynihii kale oo ka tegay meesha dad fiirsan isaga nin badan la kulmay isagaa la kulmay waddan qariban oo dhibaato badan oo inkaar ku dhacday buu soo dhex galay wuuna ku dadaalay inuu intuu soo gaarsiin lahaa inuu dowladdii meel soo gaarsiiyo mar hadduu soo gaarsiiyana waxaan leenahay gacan baan u taagaynaa xilka ka dhacay meesha xil wareegstoodana wuxuu noo ahaa faa'iido badan wax qurux badan buu ahaa wax lagu faanay ahayd inay maanta Soomaaliya ka dhacday laba madaxweyne oo gacanta ay haysto iskunkanaya inay ku kala tagaan feer bay isaga tibishay soo qaaday qiiradaas ay haysay ilaa maalintii la doortay labada gudoomiye baarlamaan gudoomiyaha baarlamaanka golaha sare iyo golaha dhexe aad iyo madaxweynaha intaaba sacabkaan timeeyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan leeyahay guul baan ku rajaynayaa insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa ummadeenna kala googo-an ee kala qaybsan ee 10 calan kala haysata inay wan calan isku afkartaan oo qaataan taas u baa meesha inta la isugu yimid muhiimka ah
marka insha Allah waxaan leenahay madaxweynaha la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay ha la garab galo ilaahayna ku guuleeyo duco u baahan yahay iyo in lala shaqeeyo waa intaas muhiimadda in Soomaali la shaqeyso ilaahayna ha u fududeeyo xil culus loo dhiibay asaga intaasaan leeyahay madaxweynaha hore xasan sheekh maxamuud asagana waxaan leenahay oo sida sharafta leh dimuqraadiyadda ugu dhiibay kolay waa isfahmaynaa ilaahay asagana ajri xasanaad ka siiyo wixii uu soo qabtay iyo qof kasta oo Soomaali oo wax soo qabatay wadankan aan xabayo u diraya anigoo ku hadlaya gabdhaha Soomaaliyeed ee degan wadanka Denmark oo dhamaantood halkan ka hadli karin xabayo waxaan u dirayaa madaxweynaha iyo labada gole ee la doortay waxaan leeyahay hawl culus ayaa sugaysa ilaahay idin fududeeyo hadalka waa la soo dhameeyay wixii la dhihi karo waa la dhahay hal arrin baan ka hadlaya anigu laga bilaabo caawa madaxweynaha maadaama inaga codsaday inaan taakulayno abaaraha iyo dadkeena baaba'san inaan koonto furno oo guddigii soo qabtay hawshan ay bilaabaan inay akaar noo sameeyaan laga bilaabo berito si aan ugu aruurino wiiga guddigan aan u dirno taakulayntii naga codsaday wasalaamu calaykum waraxmatullah dadka u maleeyay farmaajo in gaban lagu doortay xamar maanta waxa ka dhacayay oo banaanbax ah meel laga sameeyey ma jirto taageero ah waxaan leenahay farmaajo Soomaali weyn abaalkay kuu gashay oo kuu bannaan baxday abaalgudkeeda waxay ku fadhidaa cadaalad waxay ku fadhidaa inaad u mudloortid mid adoo kale ah oo aan dabada laga riixaynin oo jifin ahayn war aniga kan wasiir prime minister iga dhig aan lahayn yaan kaa sugaynaa anta jacala ummatanaa muwaafaqa ilaahayow ummadana muwaafaqasi ilaahayow ummadana muwaafaqasi ilaahayow xoolihima dhammaanaya ilaahayow xoolihima dhammaanaya ilaahayow gahaynka dartood loogu naxariiso ilaahayow gahaynka dartood loogu naxariiso ilaahayow saqiirada dartood loogu naxariiso ilaahayow qaybtanada astu ilaahayow webiyadii baa naga guray webiyada biyo nooga keen ilaahayow cirkii baa roobka ka weynaya oo abaar baa nahoodatay ilaahayow abaarta naga saar ummadda roodii farmaajo iyo dowladda madaxweynaha shacbiyadda haysta waxaan farayaa oo aad iga gaarsiisaan ciddii gaari kartooy inuu istikaareeyo ilaahay ayuu aqbalaya ilaahu rabbi ku daray jira ummadaydi waa gaawan tahay farmaajo ummadda ugu ducaa roob ilaahay waa ku aqbalaya ummadda codkeedii walaayid loo wada tahay allahuma salli calaa sayidina maxamed wa aalihi wasaxbi wasallam xilligu suu u socdo si dhib yar oo dhibaato lahayn xilka ugu wareejiyey maxamed cabdullaahi farmaajo waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaarihii xilka ka degay ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isaga laftiisu ka tegay taariikh caawa dhan intaad u mahadcelinayseen madax maalan maqal marna qof sheegaya laftiisu wuxuu mudan yahay in loo mahadceliyo shaqo fara badan buu soo qabtay madaxweynihii tagay buu la soo shaqeeyey wuxuu kaloo uu sameeyey 50 sano ka hor 8 bisha labaad 50 sano ka hor waxay ku aadanayd maalinkii la doortay aabihii markuu arkay xilkaas inuu lagaga horeeyo ayuu sub dhib yar ooga tanaasulay una fududeeyey dadkii isaga la tartamahayey codkiisana uu cuddu siiyey isaga garanaya wuxuu leeyahay isaga laftiisa in lagu ammaano waxaan idin sheegayaa taariikhda markii koowaad madaxweynihii koowaad ee ummadda Soomaaliyeed naafadu ay u mudaharaadeen oo banaan ugu soo baxeen oo ay u hambaliyeeyeen inuu noqday farmaajo taas waxay na tusaysaa jacaylka ama kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ay u wada haysan maxamed cabdullaahi farmaajo inay taabatay guud ahaan bulshada baarlamaankan qiimaha iyo qaayaha leh ee dhalinyaradu hadda ay ku doorteen madaxweynaha محمد عبد الله فرماجو وانا سود وينينا waxaan rabaa inaan u duceeyo muslimiintoodan qaashaana Soomaalida u duceeyo Allah ya wada qaadir oo qaniyo weyn qawadiya wada ba iskala ku qiraya dadka tirada weyn iyo dhulka iyo madaha qoqara buraha qadoodiyo dhulka ku qabanayo wabiyaku qura dirtiya un kala ugu qodsho nafta qaadiseed iyo xisaabta qabriga jiifno
قيامها فوق في سيقوك غلطان قاونا رسول فريو روحنا قيتسين قرحي سعيرية كفر النار الوقود ممكن حقيقة رجنة وقصلو قلي قامعنا الله ما ملك الان قدرية بس اسمع إسلام يكون عيوانا قيب سوي وراكي يسوي نقطة قرب النبي أحد مقرافتي كل شبه نوايين ما تنقصي ما تشروي كلا غيورين كما قصنا نربو قيك فاسي قاسان نسوغالي واسكهي بيان دوكي أتيسينا معالي وايد أساشين قرشاد الملايقة كفلا يبينوها كرة وقال حروة دقارة نفسه قرع يا أساس بيوتانا واسكهيين بيتكولوا وقوية واسكهيين قفر كراس مرباقاتك الجيس قبيل وربعا المسيدقات سليهاي وأهل الرقي قبسنا لوقا بايهاي كما قصنا نربو قيك فاسي بدن رأينا كهذا سومالي دويلاي بدن ركودا مادي هذا دوف كلا نقول ذلك داو عيشيون وقويا سيادة تجرد لقدين دوف كنوع بالمدو تقال خير مالي يكتاي سنقدين بدن وينو ديرنا أدوك كذا سري كروك كذا بيستين قشوك نرودي هذا ناكدين كل حاجة نرودي سومالي دقتيه نسيت سنانا وانو دما تو كل خوار لقاته دما تحساب تما شرف وين بيناتها إني بسود وينو ملحوينها مال والبر وقتواحد ومال والبلغ النادي وحنا جيسنا هبين ويل كلي ورياش ويل كمدا أردت ويدينا هيا هدي دورشة بعدين كيف تعيشين قفل الوحي هذا حبل قفل الزوجة فرماج قفل حبل هذا فرماج قفل حبل كلي هذا فرماج أفكي اسمه مقبل واحد رمسي مكة إني كاس لجبي maanta saan waleenahay inaan u tahniyey madaxda Soomaaliya loo doortay madaxa ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha federaalka Soomaaliya waxaan hadalkayga wacdalahay ilaahay markaan mahad oo dhan u soo celiyo oon ilaahay ku mahadino waxaan mahad khaas u celinayaa walaalihii meeshan soo qaban qaadiyey oo hawshan quruxda badan meesha laga dhigay noo soo abaabulay maadaama dad badan la hadlay aniga saddex arrin baa inaan ka hadlan rabaa dadka way daaleen baan u maleynayaa wax badan oo la hadlayay rag u soo shaqeeya waxaan u maleynayaa dowladihii hore ayaa meesha fadhiyo hadalkii waa la dhammaystay laakiin meesha waxaan dareemayaa inay caajis yara jiro marka codkiina maqlo codkiina muxuu farmaajo ii geeya haddii aan mahadnaq kadib waxaan halkan iskugu nimidnay inaynu حفلة تهنية أو درنا تهنية هو نوع من الفرحة وفرحة ضدكم أي شو بيقول ذا كذي بنيان خاصة أنا نقول كلمة دي ذا دحرة عينيا وحن تهنية قلي الله وأدرينا مدحوينا عصب محمد عبد الله فرماجو سيدي شرفت العائلة لو دورتي وحنان mahadnaq u jeedinaynaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ee sida sharafta leh isna ugu soo dhaweeyey waxqabadka Soomaali kelmadahan oo kale waa laga faa'iideystay Soomaalida waxaan aniga yani farxadan dhex raacinayaa inay kelmadaha wanaagsan tafaa'ulka inay isku tahniyadeeyaan inay hadal wanaagsan ku hadlaan inay qulubtooda waxa wanaagsan isku dhex raaciyaan maadaama dad qurbo ku baaba'aynu nahay caruurteenu jiilkeedu ay rabno inaynu capitalka adduunka waa lagu faanaa caasimadda Mexico waxa laga dhigay the worst caasimadda adduunka ugu khatarsan baa laga dhigay iskuulada waxa lagu bedelay mataqaanaa the worst capital in Muqdisho iminkay ka baxaysa hataa laga saaraya haddaynan tafaaulka wanaajin oo madaxweynayaasheenna ina soo maraya aynaan wanaag u rajaynin balyada ugu weyn waxaan siinayaa ma aha madaxweynaha guddigii doorashada
labada gole guddiga doorashada ee baarlamaanka iyo guddigii anshaxa iyo ra-iisul baarlamaanka oo doorasho aan weli soomaali soo marin sameeyey aad baan ugu hambalyaynayaa baarlamaanka kalena waxaan leenahay abaalkii dadka idinku lahaa waa u gudateen si fiican baad u gudateen abaalkii ummadda waxaa idinka sugaysay isbeddel aniga waxaan goobjoog u ahaa waagii calanka la saaraya saas sida hadda ninkaan oo kalea loo midaysnaa calan saarki soomaali waagaas wax ka dambeeyo oo isku dhacdo maarki waa 60kii qabiil baa loo kala baxay si bay u kala baxnay laakiin waagaasaa la midoobay tii ku xigtay oo aan arkayna farmaajo ahaa dadka sharafta leh oo reer Ows iyo agagaarkeeda iyo laga yaabo in meelo kala badan laga yimaado halkay ku yimid koolin meelahaas markii inta kasoo qayb gasho oo dhanka rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel waa wada salaamantihiin waxaan igu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi xafladan maanta micnaheedu waxaa waaye in lagu taageero nidaamka cusub ani ma dhahayo dowlad laakiin nidaamka cusub ee soo shaacbaxay ee ka soo dhashay Soomaaliya maanta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan laba qodob oo yaryar aan meesha muxuu ahaa aan ka hadlo tan koowaad waxa waaye yaa doortay farmaajo tan labaad waxa waaye muxuu qaban karaa labadaas qodob yaryar aan soo koobaya marka ugu horeysa markaan aan yaa doortay farmaajo baarlamaana doortay ama shacbiyaa doortay yaa doortay waxaa doortay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala aad doortay asaana meesha noo keenay noo miiska noo soo saar waxaan rabaa anigu inaan laba qodob caawa ka hadlo labadaas qodob waxaa weeye laba fartiimood mid waa baarlamaanka midna waa madaxweynaha baarlamaanka waxaan leeyahay raalli baa inaga nahay wax fiican baad qabateen waxyaalihii laynaga sheegi jiray iyo baarlamaanku laaluuf buu qaataa iyo wixii oo dhan maantaad iska maydteen aad baad ugu mahadsantihiin annaguna raalli inaga nahay wixii aan doonaynayna waa doorateen waxaan rabaa inaan marka ini idhaahdo baarlamaanow mooshin dambena hanugu keeninin shaqadiinnu inta iniin hartay waa inaad dhammaystirtaan oo maxay tahay dastuurkii oo qabyada ahaa inaad dhammaystirtaan inaad dadweynaha cod ka qaadaan inaad bilowdaan isla xisaabtan marka labaad madaxweynaha la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku raacsanahay intii hore idinku celcelin maayo waxaa weeyaan ummaddan ummadda dooratay asba u arka waxaana laga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryahayaa inuusan noqon midaan ku hungowno ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa ballanqaadyada uu galay mid fuliyo inuu noo noqdo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryahayaa dhibaatada Soomaaliya haysa kii looga qaadi lahaa inuu alla nooga dhigo laakiin saddex waxa baan rabaa inaan ka hadlo aniga cabdiraxmaan ahaana aan rabo bulshadayda Soomaaliyeed gaar ahaan goob dad ku sugan
inaan la qaybsado marka koowaad waxaan rabaa magaciina iyo magaca ummadda Soomaaliyeed taaniyad guud iyo mid gaar ah inaan ugu diro ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto midda labaad aan rabo waxay tahay masiibada iyo abaaraha jira in si daacad oo kaliya laaba aan ugu istaagno oo uga shaqeyno
idinkaga soo diyaarinay magaalada Aarhus ee dalka Denmark oo ku saabsanaa taageeradii la taageerayay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka iyo hambalyadii loo jeedinayay guud ahaan xildhibaanada labada gole ee Soomaaliya. barnaamijku waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Sahar Sheekh Maxamuud Cali, xagga farsamada iyo kaamiradana waa Cabdishakuur KBB. inta aanu mar kale hawada dib ugu kulmi doono barnaamij kale waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.